Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Today we are going to have a conversation. Maanta waxaan qaadan doonaa wada sheekaysi oo laba qof ah, wiil iyo gabar ah, laakiin magacyadooda waan usoo kala qaadanay A iyo B. Okay, marka waa wiilka bilaabay wuxuu leeyahay hi sister, yuran abayo. Hi sister, hey abayo. Yani ereyga hi waa erey maxaa la jiray fudud ama yar oo loo isticmaalo qofka marka hadalka u bilaabaysid sida Soomaaliga oo kale iska waran ama hay waxyaalahaas oo kale tanana waa sidaas oo kale. Hi sister, hey abayo. Gabadhi waxay tiri marka I don't respond uma jawaabo ama kama qaado the greeting salaanta from the boys wiilasha like you adigoo kale taa. So marka sidaa daraadeed mise marka camal weeyaan. So marka what is the main objective maxay tahay tiri ulajeedada ugu weyn main yani ugu weyn objective ulajeedada weeyaan. So marka what is the main objective maxay tahay ulajeedada ugu weyn behind your greeting ee ka dambayso salaantaada, yani behind ka dambayso your greeting salaantaada, yani dantaa leedahay ee hadii salaamaysid maxay tahay oo kale waa. Wiilkii marka wuxuu yiri sister walaashay ama abayo, talk to me ila hadal calmly si degan. Talk to me ila hadal calmly si degan. I was looking for you adiga ayaan ku raadinayay. I was looking for you, looking for yani raadis loo isticmaalo looking for waa phrasal verb. Marka wuxuu leeyahay I was looking for you adiga ayaan ku raadinayay a couple of days dhowr maalmood. A couple of days sagaal noqdo meesha waxa ku jirto of days ku jirto ku darsada insha Allah. Wuxuu yiri marka I was looking for you adiga ayaan ku raadinayay a couple of days dhowr maalmood. Couple of days xalada dhowr maalmood يعني maalmo aan caybneen oo maartay intaykiin la sheegin balse la maxal jiri la qiyaasayo. Marka waxa leedahay I was looking for you waxaan ku raadinayay walahay a couple of days dhowr maalmood meeshaan iga hal noqda of days ku darsada. And I have waxaan ku hayaa yiri a happy news war farxad leh. I have waxaan ku hayaa a happy news war farxad leh. ayada soo bood marka waxay tiri why you searching me maxay iga raadinaysay tiri why sababtu maxay tahay why you adiga searching me ad i raadinaysay. Searching waa raadis me waa aniga ad i raadinaysay maxay tahay tiri. Okay, wiilku wuxuu yiri marka I love you waan ku jeclahay so much si zaid ah ayaan ku jeclahay indeed dhab ahaantii. I love you waan ku jeclahay so much si zaid ayaan ku jeclahay indeed dhab ahaantii. I am on verge waxaan qarka u saaranahay of dying inaan dhinto. I am on verge waxaan qarka u saaranahay of dying inaan dhinto because of you adiga because of your sake adiga dartaa buu yiri because sababtoo ah of your sake adiga dartaada. Sake marka waa dartaada. Wuxuu dhahay marka please fadlan give me see a hand yani gacan si yani waxa la qabo waa gacan si marka waa iska sarbeeb because gacan waxa ma tareysninkan يعني وكودا waxay la qabo please fadlan give me a hand yani garab isi ama waxay la qabo and glance me iguna soo eeg ama igu milacso. wuxuu yiri and glance at me iguna milacso dhahay meesha me lagu daraa laga raal noqdo casharka boobsiis aan ku soo diyaariyay. And glance at me waxa igu soo milacsataa mise igu soo fiirsaa uu yiri with your merciful eyes indhahaaga naxariista leh. With your merciful eyes indhahaga naxariista leh. Marka waxaan filayaa inaad maartay fahantiin insha Allah in channelkaas ala kala kiciyo insha Allah la subscribe gareey casharo badan baan soo wadaa. Marka casharadan waa free maxaa la jiray data uma la isticmaalayaa oo maanta dhan aan waxyaalo kale ku isticmaali lahayn cid lacag iska rabta ma jirto. Marka inta subscribe iyo saaxiibada la wadaaga insha Allah waan ka codsanayaa. waxaan rabaa walaalahayga Soomaaliyeed in maartay aqoontooda kor u soo kacdo. إن شاء الله أنت سيقدر دارنا مالين وعن يعني درجين. Have a nice day. I will miss you ونحس دون أصحابك.